مساكين ورونو محمدو مساكين ورونو محمدو مساكين ورونو محمدو مساكين ورونو محمدو هذا المحيب ذادي مركاعيا نبي الله معانو رسولكم معبود ديرتو مقاسمو معلنكي أدونك إلى مسلم مدحو قادقو أنا جراند إفطار معناه وحوي وإلا يو بقول كل قف أفر وضرات لو أفرون يو هالميلة تذكر إسلام كا صدق الله تنقل بشر رمضان وحاو تاي مالي وين جارهان حرون عاصمة مقالة تشجع waxa uu markaas ku sidkan yahay afur wadareedkii hadda ka hor lagu qabtay xarunta caasimadda Addis Ababa ee malaayiinka qof ay ka soo qayb galeen kii ama aan idhaahdee 20kii bisha Ramadaan oo lagu qabtay caasimadda Addis Ababa isla markaasina taraawiixda lagu nooleeyay acmaasha Ramadaanta tan waxay midaynaysaa in dadka baahan ee muslimiinta ah ee aan awoodi karin inay afuraan iyo dadka Ilaahay wax siiyay iyo dawladduba inay hal meel ku aftiraan waxayna taasi sameynaysaa wadajir iyo walaaltinimo Ali Barkhat Leo أحمد ويلابا مقام كاغشيغو ماغيسا كوغولارو معني يدينتي محاهدا يمانون مصطفى ويداهدا waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay munaasabadan ka qabsoontay maanta maamulka magaalada Jigjiga ay dhalinyarada iyo bulshada kala duwan ee magaalada oo loo kala hadhin sida fiican loo soo agaasimay sida aad iyo aad u quruxda badan ee oo furnay inagoo matana muujinayna shacairta islaamka hawshan oo hadda ka hor jirin ayaa isbedelkii ka bacdi ilaahay matana waxa weeyaan wuxuu matana nooleeyay in shacair islaam la yimaado oo diinta kor loo qaado oo xorriyad la helo oo cidna la dhibin ay dadku isku yimaadaan iyagoo faraxsan oo iskood u yimiday inay meesha ku wada furaan taasi mas'uuliyiintu hogaaminaysa inay dhex fadhido wax la heli kara xaqeedii maahi waxa lagu farxo weeyaan mas'uuliyiintii matana hogaaminaysa iyo shacabkii oo meel ku wada afuraya oo wada faraxsan oo ilaahay mataqaana xusaya waa wax aad u wanaagsan weeyaan walaalayaal saadaradeed waxaan qiyaasana waxa lagu jira 10kii ugu dambeysay waa habeen jimcaha weeyaan waana 23 waa habeenadii mataqaana lagu tilmaamay fadliga bandeed ee leelatul qadriga weeyaan waa habeenada sida gaarka loo tilmaamay weeyaan saadaradeed عبادة كيف فايديسننا ونسعوينا دحدنا وإن dadka dhexdooda walaalo iscaawiyaan waxaysiiyaan ka baahan wax loo horo hadana waxa foodin ugu soo soo ciidii mataqaana fitrida weeyaan ciidaas oo ciid munaasab weyn mataqaana aad weyn dadka walaaluhu inay iscaawiyaan ay waxaysiiyaan ay isku naxariistaan ay iska warhayaan balaga maarmaana saadaradeed hawlaha noocan oo kala in mar walba mataqaana la xuso oo maalmaha mataqaana Ramadaan tahay lafteeda la isku yimaado oo shacairta islaamka la muujiyo maalmaha jimco oo kale waqtiyada noocaas oo kale lafteeda la isku yimaado oo wax loo baahan yahay weeyaan waxa kor jiri jiray maahin dadka walaalaha isku yimid ay caawayso furnayay waa wax lagu farxo weeyaan waa wax aad loo soo dhaweeyo weeyaan waa waxaan joogtayn doona weeyaan waa meel aan lahayn mataqaana mas'uulkii iyo shacabkii ay meel intay hal goob isku yimaadaan ay ku afarayaan weeyaan taana ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa inuu ilaahay noo joogteeyo amnigaan ilaalino si guud waxyaabaha waxa keenay waa amnigan iyo xurriyadan jirta weeyaan haddii amni unan jirinna dadka inta leeg ee kumaankunka qof iskugu yimaadana meeshaas ciidankiiba dhex jooga walaalahood cid la hadlaysa male oo waxa lagu farxo weeyaan dad inta leeg inay meel iskugu soo baxaan ay kala tagaan aad u adkaan jirtay saadaradeed dadkan waxaan rajaynayaa insha Allah hadda markuu afurkii noo dhamaadana in si nabadgelyo anigu lama taana meeshuu ka yimid oo ku noqdo ama gurigiisa ku noqdo taana insha Allah waan dardaarmaynaa مساكين ورونو محمدو مساكين ورونو محمدو مساكين ورونو محمدو مساكين ورونو محمدو هذا المحيب ذادي مركاعيا نبي الله معانو رسولكم معبود ديرتو مقاسمو معلنكي أدونك إلى مسلم مدحو قادقو
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلامي دمانتين ضدك مسلمين رمضان كريم. والله برنامجك waxaan soo wadnay muddo usbuuc ah. والله inaan ku guuleysana aad aan ugu faraxsanahay. waxaan direenahay Ramadan Kariim. insha Allah waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu sadaqa naga siiyo. Ilaahay dartii aan u sameeynay. waxaan rajaynayaa Ilaahay xaqiisa ajir inaan ka helno. waa 10kii dambe dartii waxa u sameeynay ajir inaan ka helno. insha Allah waxaan rajaynayaa Ilaahay ajir naga siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu Guulad Axmed waa la yiraahdaa ama Guulad Girgire magaalada Jigjiga deganahay afur waradeedka ay wareysaysiina waxa weeyaan afurku waa kulay sanadka hore waa la qabtay Ramadan 23 maantana waa Ramadan 23 dhigay biyo iyo raashin dadka islaamkana way ku faraxsan yihiin maadaama tahay habeenadii leedahay qadar leeydi ay tahay habeenadii ugu qadarka badnaa in meel lagu wala afuro oo dadka islaamka meel ku wala afuraan ay islaam xaadaan ay hal meel ku wala tukadaan ay Ilaahay bariyaan ay ku wala cibaadaystaan bisku yimaado ummadda islaamka oo dhan dhamaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Xasan Maxmed maanta afar weynahan magaalada Jigjiga waxa weeye waa afar weynaha lagu muujinayo shucuurta islaamka waana mid aad iyo aad u qurux badan oo mataqaanay dadweynaha Jigjiga ay aad iskugu soo baxeen runtii waa wax la dareemi karo mataqaanay shucuurta islaamka maanta kaalin mugla ku leh marka mataqaanay adeegto shacab weynaha Jigjiga aad iyo aadna ugu faraxsanahay intee in leeg buu farxad geliyay afar wadareedkan runtii waxa ay farxada in lagu qabto caasimadda Jigjiga in lagu qabto afar wadareedkan guud ahaan dalka waa lagu soo qabtay Addis Ababa Dirdhabo sidaan arkaynay laakiin kani wuxuu kaga dugan yahay guud ahaan magaalooyinkii hore lagu soo qabtay laftirkooda way ka soo qayb galeen oo culimadu way joogaan marka waxa weeyaan waa mid aad u ay farxad geliyeen ana ku faraxsanahay shunta alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaantiin wayna salaamnay alxamdulillah oo maanta si wanaagsan bay noogu soo dhamaatay meelaha muddo toddobaad soo wadnay alxamdulillah da masaakiin meeshan cid walba ay ku kulantay ma sha Allah مدد حبيب الله يا ابن عبد الله عليك صلى الله يا ابن عبد الله عليك صلى الله يا ابن عبد الله عليك صلى الله muradkii sunnimu yahay maka iyo madiina oo la mudo miskidkiyo xaramkii u muuqdo mar inuu sii yartanaa weli muhanayaane madad nabi allah madad xabiib allah السلام عليكم waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka afurkan magaalada Jigjiga ka dhacaya wali Etoobiyana ma aha inuu ka dhicin balmayn munaasabad ballaaran oo cajiib oo afur wadareeda oo leeylatul qadriga 23 Ramadaan iyo ka dhacay waxa weeye ilaa kaabada shishadeeda ilaa ka koone iyo ka dhacaya madaxdii kamaneedkii shacabkii askartii ciidamadii dhammaan halkaas lagu walaaloobay lagu wada afuraya caawa marka wali kan oo kale kama dhicin munaasabad aad u ballaaran oo qaali ah weeyaan marka waxaan deegaanada adduunka ku reeyay aad u ballaaran yihiin inay goboladu ay ku daydaan oo sidoo kale ay si lamida ay u sameeyaan iyagana ku soo dhaweynayna insha Allah bismillaahi kariim maalin aad ugu muhiim ah aad u farxad badan sababtoo maanta waa maalin aan muujinayna shucuurta ummadda muslimiinta ee ku nool caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida waxaan ku faraxsanahay hawlaha intaas oo cisha aan ku soo guda jirnay maanta midhaheedii intaas oo kun oo qof ay ka soo qayb gasho oo mudane iyo miskiin intaba leh aad baan ugu faraxsanahay maanta intaas oo muslimiin oo shacab oo shucuurtooda muujinaya hal meel aan ku tukano hal meel aan ku aftirano kii miskiinka kii taajirka kii masuulka kii shacabka hal meel aan ku aftirano taas farxad weyn ah maanta in shucuurteena hal meel aan ku cabirno ruuna macnihiisu waxa weeyaan inuu qofka fursad qaato qofna afuriyo qof kalena masakintana qof si afuriyo marka maanta anagu waxaan dareemaynaa farxad aad u weyn sababtoo ah shacabkii Jigjiga oo soo wada baxay iyagiyo jacayl midnimo muujinaya walaalnimo muujinaya ayaa isku yimaado wadada Ceerdaga baaqayagii maalmahan direenay lahayn hal lagu yimaado midnimadeena shucuubteena muujino si fiican ba shacabku soo ajiibeen waxaan uga mahadcelinaynaa shacabka quruxda badan ee magaalada Jigjiga sida quruxda badan ay uga soo qaybgalaan furwadareedka ka dhaliyahan waxa farxad inoo ah in afurkan si qurux badan ugu qabsoomo waana ku faraxsanahay afurkan bismillaah alxamdulillaah anigu magacayga ku bilaabo waxa waa Abdifataax Bashiir Shariif wadadan maanta wadareedka oo afur lagu qabanayo wada jirka islaamka si ka muuqata meeshan muujinta wada jirka iyo walaalnimada aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan rajeynayaa in insha Allah dadka ayaga sidoo kale dhamaantood qaabkan dareemay inay wada dareemayaan insha Allah waxa waaye bil barakeysan 10 dambe barakadan lagu jiro marka waxa waaye ayada quraanka naxayad oo man yu'addim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub
shacairta islaamka ay ka mid tahay walaalnimada iyo isdhexgalkaas iyo midnimadaas marka dareenkayga hadda ka hadla aad baa shucuurteeda lama soo koobi karo galabta farxad weyn bay tahay maartay magaalada Jigjiga maanta hal meel iyadoo wada joogta ay isugu timaado kulankan marka kulankan oo kale waan soo dhaweynay wax la heli karo maaha insha Allah aad baan u faraxsanahay anagu maanta waa maalin maartay si guud magaalada la soo wada halayo kii waxaan xaysanay kii wax haystaba hal meel baa lagu wada furayaa taas marka waxay keenaysaa dadka muslimiinta ay isugu xidhan yihiin ay hal mid u yihiin maartay inay hal mid isku wada cunteeyaan taas keenaysaa waana maalin maartay caawa waxa soo gelisay habeen fadli badan waa habeenkii 23aad leeyatul qadrigi maartay habeenkan inuu yahay asxaabta qaar yaa ku dhaaranaya marka caawan laga faa'iideysto gurwaan jumca habeen jumcaha weey waliba marka aad wallahi shucuurta lama soo koobi karo ma sha Allah afrowareedka waxaan u arkaa oo yaari wax wanaagsan weeye iyadoo 10kii dambe lagu jiray haddana habeen jumca tahay in shacairta muslimiinta la muujiyo shacairta muslimiinta rawan yucadim shacair Allah fiina min taqwal qulub alayhi ruuxi yaani shacairta muslimiinta muujiyo man yucadim shacair Allah shacairta ilaahi ruuxi yaani weyneeya fiinaha min taqwal qulub qulubta cabsida ay ka mid tahay marka in yaani shacairta muslimiinta la muujiyo afrowareed la isugu yimaado aad baan wanaagsan tahay la tahay marka wax fiican ma arkaa salaam alaykum waxaan horta marka ugu horeysa aan u mahad celinayaa maamulka magaalada Jigjiga oo afurwaradeedka noo soo agaasimay wallahi dareenkeena ma maleysan kartid intaas oo qof magaalada Jigjiga iskugu timid oo hal meel ku wada afuraysa taas waxay muujinaysaa wadajirkeena iyo walaaltinimadeena ka Soomaali ahaana waxay muujinaysaa in wanaagu taqaana uu soo bidaamayo insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadaha dambena insaan oo kale si ka wanaagsan taqaana Ilaahay noogu wallahi ma sha Allah intaan oo qof magaaladii oo dhan meel iskugu wada timid oo si fiican loo soo wada agaasimay nin walba ma taqaana fadhigiisii uu ma taqaana wax ku helayo wax la soo koobi kara ma waa in aad u fiican ma sha Allah sanad walbana waxaan u rajaynayaa maamulka magaalada Jigjiga inay saan oo kale wax soo agaasimaan insha Allah waxaan leeyahay afurwadareed wanaagsan weeyaan si fiican u dhacay ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay ummadda muslimiinta oo isku meel ku afurayso Ilaahay ku wada baraysa Cabdi markii ugu horeysay aad ka soo qayb gashay afurwadareed noocan ma iyadoo ilaa markii saddexaad laakiin afurwadareed aad wanaagsan buu ahaa kuwii hore soo arkay aad buu wanaagsan yahay waxyaalaha kaga duwan yahay waxa kamid ah in masaakiintii iyo dadkii iska caadiga ah labadaba ka soo wada qayb galaan si fiican looga wada qayb qaatay afurwadareedkan maamulka magaalada Jigjiga caasimadda dawladda deegaanka ka dhacaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ummadda muslimiinta ee soo timid ee aad u faraha badan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ummadda muslimiinta iyo shicaarka ummadda muslimiinta baaba shicaar aad iyo aad ugu fiican oo aad ugu bildhaan fiican ayay u noqonaysaa hadda kadibna waxba laga baranayaa aad iyo aad bayna ugu wanaagsan tahay ummadda muslimiintaana waxaan leeyahay aniga ahaan sidan aad u soo buuxiseen wadooyinka Jigjiga caawana insha Allah leeytul qadarka u soo buuxiyeen insha Allah masjidada intaasi kadibna waxa si wada jira loo oogay salaada maqrib Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar مساكين ورونا ومحمدو مساكين ورونا ومحمدو مساكين ورونا ومحمدو مساكين ورونا ومحمدو هذا المحيب ذادي مركاعيا نبي الله معانو رسولكم معبود ديرتو مقاسمو معلنكي أدونك إلى مسلم مدحو قادقو